ugu baaqay bulshada khayriyaduma ya abo sarakaca sacab 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 badan haroto sacab 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 badan haroto waxa galabnimadii shalay ciyaar xiiso badan ee ku dhex martay garoonka kubadda cagta Lamse Stadium ee magaalada Burco kooxaha ku kala ciyaaraya naadiga Juba iyo naadiga Ilman ee gobolka Buuhoodle wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer iyo naadiga Ilman oo ku ciyaaraya magaca dawladda hoose degmada Woodward waxaana ciyaartaas qorshaheedu ahaa isdhexgalka dhalinyarada labada gobol naadiyadan ayaa soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badan isla markaana ay la dhaceen taageerayaasha labada naadi ee soo buuxdhaafiyay garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco kooxaska labada naadi iyo isku duwaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan ciyaartan xiisaha badan ee galabta dhex maraysa labada naadi bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa ugu horreyn mahadle waxaan halkan hambalyo uga dirayaa tiimka walaalaha iyaga ah ka socda degmada Woodward Elman kulay galabta ciyaarta garoon ka dhacaysa Stadium Lamse waa ciyaar xiiso leh labadeeda kooxood insha Allah kulay guul baan rajeynaa labadeeda tababare kay guush raacdina waneegina balse waxaan hambalyo balaaran u dirayaa isduwaha gobolka Togdheer Kaysi oo ciyaarta sidan u agaasiman labada gobol ku wajihi doonta Stadium Lamse soo qaban qaabiyay markaas rahmaan rahiim marka uu raysay ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillah rabbil alamin safarkan dheer ayaan soo galay nagu soo nabadgeliyay iminkan aan ka rajeynaa insha Allah in nabadgeliyo nagu celiyo kooxdan wasaaradda caafimaadka sida fiican noo soo dhaweysay waa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan u maleynayaa koox walba waxay doonaysaa guul bay doonaysaa tay raacisana ilaahay baa og laakiin se insha Allah shakhsi ahaan waxaan rajeynayaa guul in ilaahay guul nagu hogaamiyo insha Allah anoo labada kooxood guusha wada hogaaminaya haddana waxaan sii jecelahay waa qof walba iska garanaya siduu jecel yahay maanta halkan Stadium Lamse Burco waxaa ka dhacaysa ciyaar aad iyo aad u qiimo badan oo maanta marti noogu yihiin degmada Woodward ee Buuhoodle naadi qiimo qaaya leh oo maanta ka ciyaaraya Lamse Stadium waxaana la ciyaarayaan kooxdii Juba ee maanta magacayaguna caafi ku ciyaaraya kooxda Woodward ee degmada Buuhoodle oo marti noogu yihiin gobolka Togdheer ciyaartii maanta iminka ayay bilaabantay insha Allah waxaan jecelahay inay ku dhamaato joog wacan iyo nabadgeliyo aad iyo aad baan dhammaan u salaamayaa qaranka Soomaaliland siibahan gobolada maanta martida mar walba noogu ah gobolka Togdheer iyadoo ciyaarihii gobolka Togdheer aad iyo aad u furmeen oo isbedel fara badan aan ku sameynay cidii noo timaadaba waan soo dhaweynaynaa gacmo furan baan leenahay waa gobolkiini halkan waxaan uga mahad celinayaa dhammaan dhalinyarada gobolka Togdheer ay sameeyay isku xidhka horyaalka heerka koowaad aad iyo aad baan ku mahad celinayaa waxaan leeyahay sida aad ku dhiirateen magacii maamuuskii gobolka Togdheer inaad soo celisaan iminkana dadaalkii aan idinku balan qaaday way muuqataa waana aragtaan ugu dambeyntii ciyaartan ayaa ku soo dhamaatay jawi farxadeed waxayna guushu ku raacday naadiga Juba ee ku ciyaara magaca wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Axmed Yuusuf Cabdi Axmed Shaafi Somali News TV Burco.